barnaamijkeena xogta dahsoon waxaynu ku eegaynaa qaar ka mid ah khudbadihii ugu la yaabka badnaa ee laga jeediyey kulan weynaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxaynu ugu horumarinaynaa khudbaddii madaxweynihii hore ee Falastiin Yaasir Carafaad bartankii lagu maamusay inuu khudbad ka jeediyo shirweynaha qaramada midoobay isagoo matalayay ururka xoreynta reer Falastiin ee PLO gabagabadii khudbadiisana waxa ku sheegay inuu gacanna ku sito midho saytuun ah gacanta kalena qori uu ku aargudanayo hadalkaas oo sacab ballaaran loo garaacay isagoo sheegay in gacanta midig aanu ka sii dayn doonin oo aanay ka dhici doonin saytuunka taasoo macnaheedu ahaa inuu doonayo in xal nabadeed laga gaaro halkaasi فلا تسقط الغصن الأخضر من سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي labaatankii bishii Sebtembar sanadkii 2006 madaxweynihii hore ee dalka Venezuela Hugo Chavez ayaa xilligaa oo colaadii Ciraaq ay meesheedii ugu darneyd marisay waxa isagoo u jeeda madaxweyne Bush uu sheegay in shaydaankii weynaa uu xalay ka hadlayay halkan isagoo isu haystay inuu yahay sayidkii caalamka laakiin waxa uu sheegay in ninkaasi uu doonayo inuu insaaniyadda ka bedelo basharka aadamaha. I think that the first people who should read this book are our brothers and sisters in the United States, because their threat is in their own house. The devil is right at home. The devil himself is right in the house. And the devil came here yesterday. Hugo Chavez ayaa sidoo kale sanadkii 2009 khudbadii uu qaramada midoobay ka jeediyay waxa uu ku sheegay in uu dareemayo neecaw macaan maadaama George Bush uu ka baxay aqalka cad. The devil himself is right in the house. And the devil came here yesterday. Yesterday the devil came here. khudbadii wakiilka Hindiya ee qaramada midoobay Krishna Menyore uu ka jeediyay qaramada midoobay sanadkii 1957 ayaa laga aaminsan yahay inay tahay khudbadii ugu xilliga dheereed ee qaramada midoobay laga jeediyo khudbadaas oo socotay 8 saacadood oo xiriir ah oo kaga hadlay xaaladda gobolka Kashmir waxaana ilaa hadda la aaminsan yahay in khudbadaasi ay sabab u ahayd geeridii Krishna Menyore isagoo dhacay oo dhulka u dhacay khudbadaasi dheer ka bacdi madaxweynihii hore ee Cuba Fidel Castro ayaa isna khudbad ay qaramada midoobay ka jeediyay sanadkii 1960 taasoo ahayd khudbadiisii ugu horeysay ee qaramada midoobay ka jeediyo socotayna muddo 4 saacadood iyo badh ayaa wuxuu xilligaa kaga hadlay dhaleecayn ballaaran oo uu soo jeedinayay wax uu ku tilmaamay imberiyaaliyadda caalamiga maadaama uu isagu ka tirsanaa xulafadii midowga Soviyeeti isagoo wax ka sheegay John Kennedy iyo Richard Nixon oo ahaa musharaxiintii madaxweynenimada ee dalkaasi. Castro waxa uu khudbadiisii xilligaa kaga hadlay ahmiyadda ay dalkiisa u leeyihiin beeralayda waddankiisa isaguna uu digaagad nool ku haysto hoteelka uu New York ka degan yahay. khudbadii uu ra'iisul wasaarihii midowga Soviyeeti Nikita Khrushchev ka jeediyay qaramada midoobay sanadkii 1960 ayaa loo diiwaan geliyay inay ahayd khudbadii ugu cadhada badnayd uguna kululayd xilligii dagaalkii qaboobaa uu socday kadib markii Nikita Khrushchev uu la baxay kabihiisa oo ku garaacay miiska khudbadii uu madaxweynihii hore Liibiya Muammar al-Gaddafi ka jeediyay fadhiga loo dhan yahay qaramada midoobay sanadkii 2009 ayaa waxaa loo gartay inay ahayd khudbadii ugu caansanayd khudbadihii ay hogaamiyaasha carabtu ka jeedin jireen qaramada midoobay khudbadaasi oo socotay muddo saacad iyo bar ah ayaa waxa uu si kooban ugu dhaliilay golaha amniga ee qaramada midoobay waxaana uu sheegay in dalkiisu aanu mar dambe dhaqan gelin doonin go'aanada golaha amniga haddii aanay wax ka bedelin qaabka ay u shaqeynayaan.